Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaal Umu Samiira Channel. Saaxiibayaal, dhismahan indhihiina ka hor muuqda waa dhisme intiina badan aad garanaysaan ama aad maqasheen. Waana dhismaha weyn ee loo yaqaan Taj Mahal ee ku yaal waddanka Indiya. Dhismahan waxaa loo aqoonsaday dhismaha ugu quruxda badan adduunka. Sidoo kale wuxuu caan ku yahay jacaylka. Haddaba daawade, maxay tahay sababta ka dambaysa in la dhiso dhismahan? Taj Mahal waxaa la dhisay qarnigii 17aad waxaana dhisay boqorkii Shah Jahan. Habka uu u dhisan yahay Taj Mahal waa hab Islaamiya iyo habkii Mughal Empire-ka ama boqortooyadii Mongooliyiinta ee bariga ka talinaysay in badan oo ka mid ah waqooyiga Indiya siday wax u dhisan jireen. Sidaynu soo sheegnay, Taj Mahal waa dhismo weyn oo Indiya ku yaal, aadna uga caan ah waddankaas iyo dunidaba. Waana dhismaha qudbi ahaan loo dhisay, arag ahaanna qasriga u eg. Boqorkii dhisay ayaa wuxuu ugu talagalay inuu ku xasuusto xaaskiisa oo geeriyooto la oran jiray Mumtaz Mahal, taasoo kolkii hore uu ugu magac daray boqorku dhismahan. Muddo kadib magaca Taj Mahal ayaa caan noqday, kolba sidii magacii Mumtaz wax looga sii bedelayay. Boqorka waxaa la sheegay inuu guursaday dumar badan si ay Mumtaz noqotay xaaska ugu jecel yahay xaasaskiisii, taasoo jacaylka uu u qabay xasuustiisu ilaa maanta nala joogto. Uu qabrigeeda ka dul dhisay dhismahan dunida caanka ka ah oo milyanis dalxiisayaal ah oo dunida ka kala socda soo booqdaan sanad kasta. Haddaba saaxiibayaal, kommentiga hoose nagula wadaag haddaad ka mid tahay dalxiisayaasha soo booqda sanad kasta, ama aad ku rajo weyn tahay inaad mar uun soo booqato Taj Mahal. Dhererka dhismahani sida la sheegay waa mid aad u dheer, waana 73 mitir. Eeriyada ama badka uu ku fadhiyaana waa 17 hektaar. Waa dhisme aad u qurux badan oo indhaha soo jiidanaya, kana samaysan marmar adag oo cad iyo kristalis ama qarshooyin dabiiciya iyo waxyaabo badan oo kale. Iftiinkiisa iyo dhalaalka ay bixiyaan agabka uu ka samaysan yahay awgii waxaa laga mamnuucay in wax laydha lagu xidho waqtiyada habeenkii. Waqtiyada habeenada caddada, dhalaalka dhismaha iyo iftiinka dabiiciga ee dayaxa uun lagu daawado dhismahan, inkastoo habeenkii aan la gelin waqtiyada gudcurka oo la mamnuucay. Agabka uu ka samaysan yahay dhismahan waxaa laga kala keenay meelo badan oo adduunka ka mid ah, waxaana keenay in ka badan 1000 maroodi. Meelaha laga keenay waxaa ka mid ah China, Sri Lanka iyo meelo Carabta ka mid ah. Dhismahani 20 sano ayaa la waday. Waxaa dhisidiisa la bilaabay 1632 ilaa 1653. 20,000 oo shaqaale ayaa lagu qiyaasay. Shaqaalaha ka qayb galay dhisidda dhismahan waxaana injineer ka ahaa injineer reer Iiraan ah oo la odhan jiray Ahmed Lahori. Sanad kasta waxaa soo booqda 5 milyan ilaa 10 milyan oo dalxiisayaal ah. 1983 ayay UNESCO ku dartay liiska goobaha taariikhiga ah ee caalamka. Sidaad wada aragtaan daawade, midabka dhismahan Taj Mahal waa midab caddaan ah oo sheegaya saafinimada qalbi wax jecel oo ah boqorkii dhisay ee caashaqa badan u hayay xaaskiisa geeriyootay. Taj Mahal markaad sidaa u soo gasho waxaa kaa soo horbaxaya biyo jiifo oo xagga hore ee dhismaha wadhan oo loogu talagalay inay dhismaha sawirkiisa qurxiyaan iyagoo reflection u sameynaya. Waxaa kaloo indhahaagu qabanayaan sawir weyn oo boqorkii iyo xaaskiisa ku sawiran yihiin. Xaaskiisu waxay u geeriyootay umul raac ama umul aroor. Mumtaz waxay dhashay 14 caruur ah, waxaase u noolaaday 7 ka mid ah, 4 wiil iyo 3 gabdhood oo ay boqorka u dhashay. Boqorku wuxuu ahaa 15 jir markii loo doonay gabadha uu guursan doonay reer Iiraan, iyadoo ah 14 jir. Mumtaz waxay kula dardaarantay ninkeeda intii ayna dhiman ka hor inaanu naag kale la guursan hadduu ka dambeeyo. Inkasta oo uu haween badan ka daba guursaday, Shah Jahan qabriga xaaskiisa uu jeclaa ayuu tegi jiray oo soo siyaaran jiray. Isla qabrigeedaas ayuuna 2 sano kadib ka dul dhisay dhismahan caanka noqday ee Taj Mahal. Taj Mahal waxa uu ku yaalaa beerta weyn ee Mughal ama Shaarbaag la yidhaah ee Hindiya ku taal, waxayna midig ka xigtaa webiga Yamuna. Dowlado badan ayaa ku dayday inay dhistaan Taj Mahal oo kale, oo ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta oo dhisatay dhisme high copy ah
ama aada ugu soo dhowaan oran karna Taj Mahal oo 400 qol kusii dhex yaalaan. Boqorka iyo xaaskiisuba waxay ku aasan yihiin Taj Mahal hoostiisa meel qarsoon oo dadka laga qariyay, laakiin 2 qabri oo been ah ayaa jira oo dadka u muuqda, laakiin kuwii saxda ma aha ee dadka ayaa loogu talagalay inaanay baabin qubuurta saxda. Dadyo badan oo dunida caanka ah ayaa soo booqday dhismahan oo ay ka mid yihiin, haddaynu ugu horreysiino dadka Soomaalida caanka ah waxaynu ka soo qaadanaynaa Dr. Adna Aadan, sidoo kale Facebooka Mark Zuckerberg. Madaxweynayaasha haddaynu u gudubno waxaynu soo qaadan doonaa 3 madaxweyne oo iskaga dambeeyay Mareykanka: Bill Clinton, Donald Trump iyo Barack Obama. Putinka Ruushka isaguna wuxuu ka mid ahaa dalxiisayaasha soo booqday. Sidoo kale ra'iisul wasaarihii Yuhuudda Netanyahu ayaa isaguna ka mid ahaa. Actresska haddaynu galno, actorka Will Smith laydhaa, sidoo kale actorka Commando ama Arnold Schwarzenegger laydhaa, sidoo kale Tom Cruise. Suxufiyadda Oprah ayaa iyaduna ka mid ah dadka soo booqday. Fanaaniin badan iyo dad badan oo model ah iyo feedhyahanana way soo booqdeen, way ka mid yihiin Kim Kardashian, ninkeedu isaguna fanaano Kanye West laydhaa, feedhyahanka Mike Tyson. waxba yaanad idinku daagnin ugu dambeyn daawade, haddaad meesha u dalxiis tagto waxaa jira waxyaalo badan oo shuruuc u degsan, waxaana ka mid ah ilmaha hadday 15 sano ka yaryahay in aan wax tigidha laga qaadin, dadka intaa 15 ka weynna ay tigidh laga qaado tigidhkooda. Sidoo kale maalinta Jimcaha inay goobtaasi xidhan tahay, tigidhkana aad ku dalban karto online. Waxaa ka mamnuuca Taj Mahal dhexdeeda in kamarada daroonka ah la isku sawiro ama lagu dhex isticmaalo, dadku inay qashin ku daadiyaan, in baaskeelada lagu dhex kaxaysto. Waxaa qofku helayaa service aad u fiican oo ay ku jirto inuu sawiro fiican iska qaado isagoon daroon isticmaalayn, inuu gaariga yare ka dhex adeega meeshaas uu lacag la'aan ku dhex raaci karo. Qofka dalxiisaha waxyaalo ku waajiba baa jira oo ay ka mid tahay inuu ID-giisa sito markuu gelayo meesha Taj Mahal. Haddaba mawduuc badan oo intan kasii badan oo Taj Mahal haddaad u baahan tahay waxaan idinku reebi doonaa linkiga ama website-ka Taj Mahal description-ka hoose. Asxaabtayada qaaliga ee nagu xidhan aad baan idiin salaamaynaa, aadna waan idinka mahadcelinaynaa daawashadiina iyo isla socodka aynu isla soconno mar walba. Adigaagan hadday daawanayo channelka haddaad ku cusub tahay oo ay tahay kulkii kuugu horreysadna soo booqato, fadlan subscribe noo saar, like iyo share na noo dheh si uu dad badan u gaaro.